wiil Soomaali ila socotay maalinka Jimcadii sabtideedii kasii horeysay ahayd Jimcadii aan wada soconay baa hergab loo qofay marka waxaan isaga hergabkoodii baa kugu dhacay gurigaan iska joogay marka shirkadu waan u sheegay fasax baan galay shala baa waxa la ii sheegay wiil Soomaali aan garanayo magaalada degan inuu sidaas oo kale u dareemo isbitaalka tagay kabacdina laga soo helay sidad marka ku ogaateen aad qabto xanuunka isbitaalkii waan xala maqribkii tagay dacaan bay iga qaadeen kabacdi xaafadda iskaadana kusoo wacay dhayn cudurka marka ka baarayaan waqti buu qaadanaya 24 saac jaabta in lagu siiyo marka dacaan yar bahal yar bay soo fuudiyaan dhunta iska gelinaysa waad ku celinaysaa anaa kusoo wacay inay number bay iga qorteen hadda dhow bay soo waceen marka waxay ku dhaheen positive baa tahay labadu waa inaa gurigaaga joogtaa ka bixi karto guriga xanuunkan waad ogtahay oo dalal badan oo caalamka ayaa la daala dhacaya dadkuna asas badan bay ka qaadeen marka bal waxay nooga sheegay calaamadaha aad isku aragtay ka hor intaan baaritaanka samayn niyo xanuunka intaan usan igu dhicin aniga waxaan arkay maalinkii sabtida waan shaqaynayay waxaan isku arkay riixyo dhunta cunayso kabacdi waxaan cabayay muddo ah finjibiil iyo shaah baan iska cabayay hergab baan aaminay waxaan dareemay wareer dhigaha xanuunaya labada dhafoor oo aad iyo xanuunayo tabardaro qufac laakiin inkastoo marka aan sanjibiisha iyo maaragtay waxyaabaha kulkulul iyo isbaaskii cuno ah ka roonaanayo laakiin inta badan waxaan dareemayaa qandhaca aan jirkayga ka baxayn tabardaro aniga dhan wareer baa igu jiray markasta marka waxaan dareemay waxa inaysa hergab ka weeyeen because of weligay hergab 4 bari ka badan lama xanuunsan waan dareem waxaan wax aan caadi inay yihiin sidaas darteed baana shaki igu jiray muddo 3 bilo u dambeysay waxbaa si khaldan caafimaadkayga marka sidaasaana keentay inaan aado dhakhtarka soo baaro qaar badan oo kamid ah dadkii uu haleelay xanuunkaasi ee caalamku waxa la sheegay naqaska uu ku dhago oo ay miir dabolmeen marka bal ka war calaamadahaasi iyo walaa wax neefa iyo wax taariikh saa'id ah taan kala joogtay anuu mahay alxamdulillaah rabbil caalamiin ee qof bas uu ku helaa laakiin aniga hadda sida waqtiga aan ku sheegay maanta maalin ka fiican ma jirto qandhama dareemo waxa ma dareemayo alxamdulillaah rabbil caalamiin laakiin dhakhtarku wuxuu igu dhahay 2 week baad karantii ahaanaysaa 2 week marka waxaan ku dhahay already guriga waan joogin waxa igu tiri waxba dhimma 2 week kalena gurigaaga si joog iska naso waxa weeye biyo badan cab waxa weeye nasiinadana bani dhakhtarku ku dhahay dabcan waxa laga yaabaa in dad badan ay kugu nool yihiin halka aad ku nooshahay ama qoys ahaadaan ama saaxiibaha ahaadaan marka iyagu xaaladooda caafimaad bal ka waran niyahow aniga keligay baa degan laakiin dhalinyarada waxaa jirtay aan talaadadii aan kulanay waa u sheegay oo soo baaran ku yiri laakiin iyagu waxay ku dhan waa fiicannahay laakiin dhibaatada jirta waxay tahay niyow Soomaali badan oo magaalada joogto especially 5 iyo 6 gaarayso aan wada xiriirnay maalmaha xanuunsan aan la wada xiriiray kulli intaan dareemay wada dareemaya qof raba inuu isbaaro ma jirto marka waxaan dhihi lahaa wareed hal soo baaro qofku horta ogaado waxaan hayo ilaahay baa caafimaad hayo alxamdulillaah rabbil caalamiin qofku inuu ku qanco wax kasto ku dhaco muslim baana annaga waxaan ku fiicannahay wuxuu waa iska hergab laakiin waxa daran qof waa yeel ama qof kale oo xanuunsan cudurrada maaragtay dilaaga qabo inaad ku darto oo nasiiba halkaas gacmaha ugu geysato marka waxa daran inaad wixii adiga inta inkirto gurigaaga dhex xurdo dad badan baan aqaanaa 1 iyo 2 3 midna ah oo magaalada ila jooga dhalinyaro Soomaali ah oo isna qaano kulligood wada qandan oo qufacayo oo ku dhahayo calaamadahaas laga helay adiga aad dareemaysid anagana waa dareemayna ku hay aan rabin isbitaalka inay aadaan marka waxaan oran lahaa dadku qofku markuu xanuunsado gurigiisa ha joogo hadduu aad isaga shakiyo oo qufac saa'ida iyo qandho iyo tabardarro iyo waxa dareemo fadlan maalinka saddexaad ama labaad adoo cidna la kulmin isolate iska dhigo keligaa guriga ku xidhnaw dhakhtarka u tag isa soo baar ka sokow in lagu yiri 14 cisho soo socda guriga isku karantiil ma jiraan waxyaabo kale oo daawooyin oo kaalmaad oo lagu siiyay wax kale oo lagu qabanay ma waxay ku leeyihiin lacala haddii neef aad dareento neefta inay ku dhibto ambulance tawac dhakhtartii baartii baa soo wacday difaaca jirkaagu aad buu u shaqeynayaa waan ka dareemayay bay dhahday laakiin 2 guriga iska joog bay ugu tiri